السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada sumidbro.com ee laga barto cilmiga kombiyuutarka. Waxaynu kusoo jirnay duruusteennii taxanaheeda oo ku baranaynay hagaajinta fiidiyoyaasha ama video editing qaybta Sony Vegas. Darsigana maanta waxaan ku qaadan doonaa qaabka loo sameeyo intro ama hordhac. Waa maxay marka intro? Maxaa loo adeegsadaa? Intro waa hordhac ka horeysa fiidiyowga. Hordhac walba oo maxaa la yiraahdaa fiidiyowga ka horeeya waxaa loo yaqaanaa intro. Tusaale hadda fiidiyowgan hadda aad daawanaysid ama cashirkan hadda aad daawanaysid markii uu bilaabanayo wuxuu ku bilaawday loogada oo Summit Pro buu ku bilaawday sax. Marka taas waxaa loo yaqaanaa hordhac ayaa loo yaqaanaa. Marka qaabka uu soo galay animation-ku ku soo galay hordhac ayaa loo yaqaanaa ama intro baa loo yaqaanaa. Marka darsigan marka waxaan ku baranaynaa qaabka loo sameeyo intro ayaan ku baran doonaa insha Allah. Marka introyin badan ayaan idin siin doonaa insha Allah tacaala ilaa 11 intro baan wada hayaa. Marka waan idin wada siin doonaa insha Allah tacaala videoga hoostiisa ayaan idin dhigi doonaa. Marka waxaan isla baranaynaa qaabka marka loo isticmaalo ayaan isla baran doonaa ama qaabka loo hagaajiyo intro. Introga aan idin wada siin doonaa dhammaantooda waa kuwo sameysan ama diyaarsan oo aad ka bedelanaysid loogada iyo magaca ama qoraalka aad ka bedelanaysid oo kaliya waa waqti badan ma ka qaadanayso way wada diyaarsan yihiin dhammaantoodaba waad maxaa la yiraahdaa loogada iyo waxaad ka bedelanaysaa magaca ama qoraalka aad ka bedelanaysaa. Okay, hadda marka intaan intro waa maxaa la yiraahdaa 11 intro waaye. Marka introdan oo kaleeto ayaan maxaa la yiraahdaa tusaale ahaan u qaadanaynaa qaabka loo hagaajiyo introyinka qaabka loo hagaajiyo tan ayaan marka ku qaadan doonaa. Okay, marka tusaale marka introdan ayaan u baahanahay inaan hordhac ahaan u qaadano qaabka maxaa la yiraahdaa loo hagaajiyo introyinka. Marka waa project diyaarsan. Marka project marka waxaan sameeynaa xitaa double click ayaan ku siinaynaa. Double click markaan ku siino waxaa soo kacaya projectiga soo kaca. Marka intuu ka soo kacayo waan sugeynaa. Okay, waa ujeedaa malena projectigeena hadda uu inoo soo kacay. introdeena marka waatana play aan dhahna marka hadda oo jeeda waa qaab noocaas ah xitaa macala codkeedii xitaa uu ku wada jiraa uu wada diyaarsan yahay. Waxaad ka bedelanaysaa oo kaliya qoraalka haddii qoraal ay tahay ama haddii maxaa la yiraahdaa looga ee wadatana loogadaada ayaad soo gashanaysaa. Okay, qaabkee marka u bedelaynaa marka tusaale hadda kan waa wada qoraal waaye wax looga kuma jirto. Kan loogadana waan isla arkaynaa insha Allah. Marka zoom-ka ayaan soo dhaweysanayaa oo maxaa la yiraahdaa timeline-ku waan soo dhaweysanayaa. Okay, marka hoos ayaan u soo dadegaynaa kan ayaan ka bilaabaynaa marka waxaan ku dhufanaynaa marka calaamadaas aan ku dhufanaynaa. Calaamadaas marka ku dhufatid waxa bedelmaayo waxa qoraalka ayaan marka bedelaynaa. Hadda waxa ku qoran qoraalkan ayaa ku qoran RKMFX ayaa ku qoran waan ka tirtiraynaa waxa leenahay Summit Pro ayaa leenahay. close ayaa leenahay sidoo kale tan kanna waa ka tirtiraynaa waan soo furaynaa. Design baa ku qoran waxa leenahay academy marka waxa leenahay academy ayaa leenahay. Ma u jeedaa marka waxay soo dhax gashay qoraalkii kale ayaa soo dhax gashay. Marka waxa leenahay space ayaa leenahay ilaa qoraalka uu ka dhex baxo. Close ayaa leenahay marka waan xiraynaa. Play aan dhahna balan aragno oo u jeedaa Summit Pro Academy. Okay, kor ayaan xoogaa yar u bixinaa. Sidoo kale tan kan kale ayaan bedelaynaa ku dhufanayaa waan bedelayaa. Marka waxa leeyahay meeshaan waxa leeyahay baro xirfad ayaan leeyahay. Okay, close ayaan leeyahay marka waan iska xirayaa. Okay, marka play aan dhahno oo jeeda marka qaab noocaas u soo galaysa. Sidoo kale tan kuwa kale ay dhiman oo iyagana in maxaa la yiraahdaa aan wax ka bedelo loo baahan yahay qoraal kale kanaan hadda ka bilaabaynaa. Sidoo kale marka youtube.com/waxaan leeyahay Summit Pro close ayaan leeyahay. Okay, play ayaan leeyahay marka. Okay, marka qaab noocaas oo marka ku soo galaya qoraaladana qaab noocaas oo looga bedelaa. Sidoo kale tan waxaan isla arki doonaa qaabka loo bedelo loogooyinka haddii looga leedahay. Hadda waxaan isla baranay introductions-ka oo maxaa la yiraahdaa leh qoraalada leh ayaan isla baranay qaabka loo bedelo. Waxaan isla baranaynaa marka qaabka kuwa loogada leh looga bedelo loogadaadana looga dhigto. Aan dib ugu soo laabana marka qaybta maxaa la yiraahdaa introductions-ka ay noogu jireen kan ayaan hadda maxaa la yiraahdaa leh loogu leeyahay kan ayaan marka maxaa la yiraahdaa customize garanaynaa. Okay, way inoo soo kacday marka play aan dhahno aan isla aragno qaabka introdan ay tahay iyadana.
ayadana qoraal ku jiro kadibna loogada ayaa soo galayso iyo qoraalkeeda. Okay, ma xuma loogada marka waa tanaa marka u jeedaa malena waxaa leeyahay marka right kaliya aan leeyahay kadibna waxaan ku dhufanaa meesha ku qoran tahay replace na macnaheedu waxay tahay ku bedel. Marka waxaan ku bedeleynaa loogadeena ayaan ku bedeleynaa. Loogadeena marka waa tanaa desktop-ka ay noo taalaa double click ayaan ku siinaa. Marka loogadaada waa inay ahaataa logo PNG markaad maxaa soo samaysid PNG ka dhig wax background looma baahna loogada marka PNG waa inaad kasoo dhigtaa background haddii ku jirtana background-ka kasoo bixi PNG ahaan usoo fikirayso. Bale aan dhahna markaan isla aragno oo jeeda loogadeena marka way soo gashay. Marka waxaan sameynaynaa waxay tahay qoraalada dhan ku jiro ayaan maxaa la raahdaa ayaguna bedel doonaa oo qoraaladeena ayaan ku qoran doonaa. bale ayaan leenahay marka oo jeeda aad markuu qurux badan yahay way wada diyaarsan yihiin introoda oo jeeda marka waa aad markuu qurux badan yihiin qaab noocaas marka intro maxaa la raahdaa introska looga badbedelaa ama loo hagaajiyaa ama loo sameeyaa. Marka way wada diyaarsan yihiin ayagana waan wada sii doonaa qaybta hoose ayaan idin dhigi doonaa. Halkaas ayaad ka wada degsan doontiin dhammaan introska. waxaan rajaynaynaa fahamteen. waxaan u ballan darsiga xiga inta ku kulmi doono darsigan mid ka xiiso badan waxaa idinkaga tagay asaasi nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.